يا إلهي يا إله يا إلهي يا إلهي عصيت والذنب كبير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجنا والله صدر يا رسول وياي دمر كان سيدو كلا رسول كودي ويا labadaba waxa laga rabaa inay ku daydaan isaga ninkan isaga uu eego gabadha haweeneydana isaga ay eegto ay ku dayato nabiga sallallahu alayhi wa sallam Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu asxaabta qarba cibaadadii nabiga markay arkeen bay mantaqana waxay isdeen nabiga alayhi salatu wasallam dambigiisii uu dhaafay una cibaadaysta anaga laazim ina cibaadada badino markaas Uthman ibn Mad'un waxa uu sameeyay radiyallahu anhu naagtiisii uu faraha ka qaaday waxa uu iska dhaadhiciyay in adduunyada dhan ay iyada ku jirto naagtii ka mashquulay cibaado ku mashquulay soon iyo salaad habeen uu taagay maalintii uu soomay hadda gabadhii waxa ilaahay uu amray inay ninkeedii isku qurxiso isku diyaariso hadduna dan kale maxay sameeyeen maalinta oo dhan inda kuulay marsanaysa wascad qof soo fiirinaya mal bari dharkii iska bedel dhar cusub ay qaadanaysaa way cadaynaysaa in dhukuul catar barfuun war fariisanaysaa qofka subxaanallah wardiyo isaga jira marka dib waxay siraa isku mashquulnaysiin nafteedii faray ka qaaday markaas iyadoo nabiga soo booqatay ay nabi sallallahu alayhi wasallam Aisha weydiin maxaa saan gal gabadha maxaa rafaadkan muxuu ahaa markaas waxay tiri Aisha ya rasuulallah Uthman ilaahay kaga mashquulay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu isbedel Uthman alaygu waal keen markaas waxa uu yiri araghibta an sunnati sunnadaydi ma ka jeesatay aniga ma iga tagtay waxa aniga ay sharciyay ma kula xumaaday markaas uu yiri la wallahi ya rasuulallah inma talaban li sunnati warsun nabi allah may sunnadaadii raadina waxaan saan sameeynaa inaan sunnadaadii wadadii ku istaagaan raba khalad iga ma ahan markaas nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri fa inni anaamu وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح وأن هدى وأن صوتوسا وأن تكذا وأصوما وأن أفرا حاسس كينو وأن تكا وحفظت وصوما يعني ماشي كامل جرتو سانانيقا سمينا يا حدا رتي أنيقا سيدانا سميا وحوري يا عثمان إن لك في أسوة عثمان أنيقا قضياشا إيكاسوكا يقضيو نبي الله صلى الله عليه وسلم إلهي نوعي جل شانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبي قال ضيشونا أكسنا إذن كوجر تعلقوا الضيض نبي عثمان وحكيري إن لك في أسوة وأنا يقول صوت ضيض ماشي أنا عكت إذا بقى عكت هذا صوتي خلاص سبحان أنه شيء يسوي مركدي بقول نقطة سوا وقت كان أنك هذا الجوجنا هذا نوع ما نوع عن مقلنا هذا الحاس كيسيو فري ama uu garaacay maxaa dhacay telefoon ay nin kula hadlaysay telefoonka gabadha haysato shaki uu ka qaadaa wuxuu iska dhaadhicina khurafad ibliisa ku soo dagaayo fiilinu iska sawrana uu garaaci ama reerkii iska burburin waxa maqleena soo gaarayo cajiibka hebel naagtiisu garaacay ama uu furay war maxaa dhacay sababtoo ah hooyadii aabaheeda Soomaaliya jiray lacag u dirtay uu ka carooday uu garaacay بسهولة يعني تبعت $100 يعني لأبيها ولأمها ويسبب ذلك طلاقا ودمارا للأسرة سبحان الملك وحن مقلنا هذا الحاسكي سوق قرعي ورمحاد عي وفري ورمحاد عي صوبته أما عوندي حكومة دي بحيني سعيرتي أيال لقوه الشيوهي والله فريم والله قرعي محكمة ذا أطلع ورهب الحاسكي وفري ورمحاد عي عنتظرين يوصل ديار سيكو صوت ضاد ما نقول بيقول صوت ضاد عنتظر سيفي عن النبي عليه الصلاة والسلام وحجك حجة الوداع وحجك قدام بين النبي عليه الصلاة والسلام حج وحجي كدبنا وأوجريودي أنت كلا النبي قوم سعم ريسنجر نلاشيسه صلى الله عليه وسلم حجك النبي قدام بين وداعها سقوت انتها ودتك مع السلامين صلى الله عليه وسلم ayaa nabiga marka uu istaagay dadkii uu wacdiyay dadkii uu waani dadkii wax badan u sheegay arimo badan oo ka hadlay siyaasadda dawladda oo ka hadlay arimaha militariga oo ka hadlay
arrimaha musaalaxadii uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha uu ka hadlay markaasuu u soo jeestay dhiigga iyo cirdiga uu ka soo hadlay wuxuu u soo jeestay gurigii usartii muslimiinta sababtoo ah guriga muslimka ayuu ka bilowda khilaafada islaamka seen khilaafa islaam ku soo celina haddii guryaheennii dhan ay burbursan yihiin aanay diin oolin aabba diin laawaa iyo hooyo diin laawaa hadday guriga joogaan canuga soo baxaya muxuu noqonayaa qird alaysa kadalik waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam marka uu ka hadlayay marka xaajatulwadaac alaa wastawsuu binnisaa'i khayraa war dumarka rag yahow dumarka khayr ha lagula dhaqmo fa inamaa hunna cawaanun cindakum waxay idin yihiin sida qafaashi oo kale dad lasoo qafaasho oo kale ay agtiinni ku yihiin idinkaa guri keensaday wakhtigaad doontiin waa baxdaan wakhtigaad doontiin waa soo gashaan meeshaasay idin fadhiyaan waxay idin kariyaan masaalixdiinnii noloshiinniyay mataqaanaa kala hagaan caruurtiiyay idin tarbiyayaan wuxuu yidhi waxay idinla mid yihiin sidii qafaalkii oo kale في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغورني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض الضياء والدمع بات أبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير